kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena caawa waxaynu kusoo qaadi doonaa wargeysyada waaweyn ee ciyaaraha ka faallooda ciwaanada ay sameynayaan, iyadoo aan soo qaadi doono ciwaanada iga soo horbaxa. Mid kastoo iga soo horbaxaan sheegi doonaa anigoo idin kala xuleynin. balse intaanan gudagelin muuqaalkan waxaan idinka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka. Sidoo kale saaxiibada hore noola joogay waxaan ka codsanaynaa inay inoo like gareeyaan muuqaalkan. Mahadsanidin. waxaan markaa sheekooyinkeena ka bilaabeynaa horyaalka La Liga ee dalka Spain oo markaa isku aadkiisa la sameeyey maanta iyadoo la shaaciyey kulamada markaasi El Clasico, saacadaha amaba waqtiyada la kala ciyaari doono iyo taariikhaha garoonka lagu hormari doono midka Barcelona iyo midka Real Madrid ayaan sidoo kale eegi doonaa. Horyaalka La Liga waxaa maanta uu ku dhawaaqay isku aadka ama jadwalka horyaalka La Liga xilli ciyaareedka soo aadan ee 2022-2023 waxaana la shaaciyey in El Clasico la ciyaari doono October iyo Maarso ee sanadka 2022 iyo 2023. si rasmi ah taariikhaha kulanka El Clasico ee u dhexeeya kooxaha Real Madrid iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Barca waxaa markaasi xilli ciyaareedka La Liga 2022-2023 la ciyaari doonaa kulanka lugta koowaad 16 bisha October sanadka 2022 oo markaa lagu hormari doono garoonka Santiago Bernabeu ay ku ciyaarto kooxda cadcadka ee Real Madrid. halkaas ayay Los Blancos ku qaabili doontaa Barca oo marti ah. waana kulamada sagaalaad ee horyaalka La Liga ama isbuuca sagaalaad ayaa markaasi kulankooda koowaad uu yahay, waana 16 bisha October sanadkan 2022. kulanka kale ee El Clasico waxaa markaasi uu noqon doonaa Camp Nou markaa ka qabsoomaya 19 bisha Maarso sanadka 2023 waxaana kulankaasi la martisoori doonaa Real Madrid oo soo booqanaysa garoonka Camp Nou. Barca ayaana marti loo yahay. waana kulamada 26aad ee horyaalka La Liga oo markaa gabagabo kusii dhawaanaya. El Clasico markii la ciyaarayo lugta labaad horyaalka La Liga waaba iska gabagabo waayahay. isla horyaalka La Liga kulamada toddobaadka koowaad la ciyaaraya haddii aan eegno Athletic Club ama Athletic Bilbao waxaa markaa ay la ciyaari doontaa Real Mallorca. sidoo kale Real Betis iyo Elche ayaa wada balansan. Barca waxay ku furan doontaa Rayo Vallecano. sidoo kale Celta de Vigo waxay markaa qaabili doontaa Espanyol. Cadiz ayaa la ciyaari doonta Real Sociedad. sidoo kale Osasuna waxay markaa marti gelin doontaa Sevilla. Real Madrid waxay booqan doontaa Armenia oo markaa horyaalka ku cusub xilli ciyaareedkan. sidoo kale Atletico de Madrid waxay booqan doontaa naadiga Getafe. Real Valladolidna waxaa markaa ay la ciyaari doontaa Villarreal. Valenciana waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Girona. marka kulamadaasi waxa ay yihiin kulamada toddobaadka koowaad iyo koox waliba midda ay markaa ku furanayso. laakiin El Clasico waa 16 October 2022 iyo 19 bisha Maarso 2023. horyaalka La Liga haddii aan intaa uga soo tilaabno ciwaanada kale ee la qorayo haddii aan sii gudagalnana ninka la yiraahdo Henrik Mkhitaryan xidigii hore ee kooxaha Arsenal iyo Manchester United waxaa lasoo warinayaa inuu heshiis la gaaray una saxiixay naadiga la yiraahdo Inter Milan ee wadanka Talyaaniga, laakiin heshiiskaasi weli si rasmi ah looguma dhawaaqin. ciyaaryahanka xilli ciyaareedka soo aadan waxa uu ka ciyaari doonaa wadanka Talyaaniga iyo kooxda Inter Milan, laakiin heshiiskaasi waxaa si rasmi ah loo shaacin doonaa oo kooxda ay ku dhawaaqi doontaa baa la leeyahay 1 bisha July ee inagu soo aadan. si rasmi ah ayuu kooxda Roma uga soo dhaqaaqay. Sky Sport Italian waxay warinaysaa in saxiixa xidiga Armenianka ah oo beeca xorta markaasi lagu soo qaatay si rasmi ah Nara Azzurri ay ugu dhawaaqi doonto marka heshiiska kooxda Roma uu kula jiro uu dhaco, waxaana ay ku dhawaaqi doontaa 1 bisha July. sheekooyinka kale waxaa markaa ka mid ah faloobyada ugu waaweyn horyaalka Premier League ama 11 xidig ee ugu qaalisan ee faloobyada ka noqday markaa Premier League oo la soo calaamadeynay shax laga sameeyay. shaxdan waxaa markaa goosha ugu jira goolhaye Kepa ama Mabaxay. waa goolhayaha ugu weyn ee faloobka ee Premier League leeyahay, lacaga badanna lagu soo qaatay. daafacyadu waa 3 daafac. shaxdu waa 3-4-2 waayahay. 3 daafac waa Mangala xidigii hore ee Manchester City, Mustafi oo Arsenal isagana ku fashilmay horyaalka Premier League, iyo Phil Jones oo Manchester United ku fashilmay. 3 daafac la istaajiyay.
waa saxiixyada qaaliga ah haddana markaa ah kuwa ku fashilmay horyaalka Premier League ee falabyada markaa ku noqday. Drinkwater iyo Pogba iyo Veron ayaa qadka dhexe markaa ku wada jira. Pogba xataa falabyada Premier League lagu daray. Sanchez iyo Pepe ayaa markaasi dhexda oo weerarka markaasi kamid ah. Waa Nicolas Pepe iyo Alexis Sanchez. Lukaku iyo Torresna waxay markaa falab ku noqdeen iyaguna horyaalka Premier League, waana shaxda markaa qaaliga ah ee Premier League markaa falabyada ku noqday. shaxdaas ayaana la sameeyay. adigana waad eegi kartaa oo waad saadaalin kartaa shaxda markaasi falabyada markaa ku noqday horyaalka Premier League Ingiriiska. waxaa inoo soo socda shax markaa igana laga sameeyay sida ay u ekaan doonto kooxda kubadda cagta Barca haddii saxiixda ay doonaysa sameyso sida ay noqon doonto ayaa markaa inoo soo socda. kooxda Barca markaa shaxdeeda haddii aan eegno amaba shaxda la filayo in xilli ciyaareedka cusub ay markaa ku shirtagi doonto oo horyaalka La Ligaha Spain ay markaasi kooxaha isaga dhicin doonto haddii markaa ay la soo wareegto saxiixda ay doonayso. Golaya Ter Stegen goosha u geli doona. Jules Kounde oo ay doonayso haddii ay la soo wareegto ayaa markaa daafaca dhexe ciyaari doona si lamid ah Christensen oo Chelsea markaa ka imaanaya dhankeeda. Alonso iyo sidoo kale waxaa labada garab ee daafaca ciyaari kara baa leeyahay Azpilicueta. marka Chelsea ma la soo baartay Chelsea Christensen Azpilicueta iyo Alonso ma laga qaadana meesha waa Chelsea isku bedeshay. Jules Kounde daafaca la ah markaa Barca waayahay. qadka dhexe ee Frank Case iyo Pedri iyo Gavi markaa ku wada jira. weerarkana waxaa la leeyahay waxay soo xulan karaan Bernardo Silva oo garabka kale oo ah Pierre-Emerick Aubameyang iyo weerarka tooska ah oo ah Robert Lewandowski. marka waa line up ajiib ah oo xilli ciyaareedka soo aadan amaba xilli ciyaareedka cusub ay markaa ku shirtagi karto kooxda kubadda cagta Barca. sheekooyinka kale waxaa markaasi kamid ah Paul Pogba waxaa markaasi uu ku dhow yahay inuu dhameystiro heshiiska uu dib ugu laabanayo beeca horta kooxdiisii hore ee Juventus kadib markii uu ka tagay Manchester United sida warbixinadu ay tilmaamayaan. warbixinada ugu dambeeyay waxay leeyihiin Pogba Manchester waa uu ka tagay waa macsalaameeyay waxaana uu dib ugu laaban doonaa magaalada Turin halkaasoo uu markaa dhameystiri doono ku biiristiisa ama dib ugu noqodkiisa kooxda kubadda cagta ee Juventus. sheekooyinka kale waxaa markaasi qayb ka ah Zinedine Zidane waxaa markaasi la weydiiyay sababta uu macallin ugu noqon waayay Manchester United waxaana uu markaa bixiyay jawaab yaab leh isagoo wareysi siinayay shabakada la yiraahdo Marca ama jarrada Marca ee wadanka Spain ka soo baxda. Zidane waxaa la weydiiyay sababta uu macallin ugu noqon lahaa Manchester United oo isaga diiday waxaana uu ku jawaabay miyaan anigu doonayaa inaan tago Manchester United miyaan doonayaa waan fahmayaa Ingiriiska laakiin si fiican uguma hadli karo. waxaan ogahay inay jiraan tababarayaal markaasi taga naadiyo iyagoo aan markaa ku hadal luqadda dalkaasi markaa looga hadlo laakiin anigu si ka duwan ayaan u shaqeeyaa uu leeyahay anigoo luqad aan aqoonin dalkaas koox ah ma aadayo uu leeyahay. waxyaabo badan ayaa markaasi horseeda in markaasi aad ku guuleysato ciyaarta waana mowduucyo caalami ah anigu waxaan u baahanahay inaan guuleysto mar walba. marka Zinedine Zidane sababta ugu weyn ee Manchester United uu isaga diiday waxaa markaa lagu sheegay in uusan si fiican ugu hadli karin luqadda Ingiriiska taasna ay saameyn ku yeelan doonto shaqadiisa maadaama uu doonayo inuu guulo waaweyn xaqiijiyo. marka ninka la yiraahdo Zinedine Zidane saasuu isaga diiday Manchester United. sheekooyinka kale waxaa kamid ah wargeysyada ay qorayaan caawa ninka la yiraahdo Christopher Nkunku RB Leipzig heshiisku u dheereeyay ilaa 2026 kooxo badan ayaa doonaya oo ay ku jiraan Manchester United iyo Chelsea waxay rabeen inay keensadaan laakiin heshiiskiisii waa uu kordhiyay RB Leipzig. dhinaca kale sheekooyinka ciyaaraha waxaa caawa kamid ah ninka la yiraahdo Robert Lewandowski dalabkii ugu horeeyay ee cusub ayay markaa kooxda kubadda cagta Barca ka gudbisay baa leeyahay. wargeysyadu waxay tilmaamayaan in dalabku ka caya 42 milyan oo dollarka Mareykanka ah markaa laga gudbiyay Robert Lewandowski waana dalabkii ugu horeeyay ee cusub ee kooxda Barca ay ka gudbiso weeraryahankan reer Poland. sheekooyinka kale ee ciyaaraha waxaa sidoo kale kamid ah saaxiibayaal ninkii ahaa Nketiah oo heshiiska u kordhiyay kooxda kubadda cagta Arsenal dhawaan waxaa markaasi uu kamid yahay xidigaha sii joogi doona kooxda Arsenal oo iyadu suuqa ugu jirta in ay saxiyo waaweyn sameyso ay ku jiraan Gabriel Jesus iyo xidiga kale waxaana Nketiah uu markaa dignin u diray Gabriel Jesus iyo xidigaha kale ee kusoo wajahan kooxda waxa uu leeyahay waxaa la idinkaga baahan yahay inaad booskiina difaacataan mar walba inta iska imaadeen aba iska helaa war ma aha inaan u dagaalamo booskigan diyaar u ahay adigana waa inaan u noqotaa uu leeyahay Gabriel Jesus. waxay kordhiyeen heshiiskii uu leeyahay Nketiah waxaa jira sabab ay markaa sidaa u sameeyeen inay heshiiskii kordhiyaan sababa ka dambeysa cid kasta oo timaada halkaana waa inay diyaar garowdo tartan waxaad helaysaa soo dhaweyn
laakiin waa inaad booskaaga u dagaalanto oo aad markaa tartanto. Gabriel Jesus maqal ma jira inaad tartanto booskaaga u dagaalanto. Arsenal imaw soo dhaweyn fiican waa helaysaa, laakiin booskaaga inaad u dagaalantid ayaa markaas la iska rabaa. saaxiibayaal, warbixinada ciyaaraha ee kale waxaa markaasi qayb ka ah oo wargeysyadu ay qorayaan. ninka la yiraahdo Richarlison iyo Rafinha waxaa markaasi ay bartilmaameedyo u noqdeen baa la leeyahay kooxda kubadda cagta Tottenham. xidigahan reer Brazil ee weerarka ka ciyaara bartilmaameed ay ka dhiganaysaa kooxda Tottenham ee la kala yiraahdo Richarlison iyo Rafinha, waxaana ay doonaysaa suuqa xagaagan inay markaas soo qaadato sida ay tilmaamaysa shabakada la yiraahdo Evening Standard. labada ciyaaryahanba waxaa lala xiriirinaya kooxda kubadda cagta Arsenal ee ka dhisan waqooyiga London, laakiin tababar Antonio Conte ayaa doonaya inuu ganacsi sameeyo oo labadan xidig ee reer Brazil kala soo wareego kooxda Everton iyo sidoo kale Leeds United. saaxiibayaal, intaasaan idinla socodsiinayay, waqtigaa naga sii dhacaya. wargeysyadu waa iska badan yihiin wararkay qorayaan. saaxiibada cusub waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inoo saara markii ugu horeysa haddii ay tahay wadna soo booqatid. kuwii hore noola jooga waxaan ka dalbanaynaa inay like inoo saaraan muuqaalkan siina gudbiyaan. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.